marka dulqaad la'aantu waxay kuu geysaa inay noloshaada cidhiidhi kugu noqoto. tusaale ahaan waxaad ku weydaa dadka kuugu dhadhow baad ku weydaa sababta waa bini aadam waa la sheekeyno waa la hadlay hadalladooda. dulqaad la'aantaadu waxaa laga yaabaa inay kugu sababto inaad u dulqaadan weyda kaftanka saaxiibada iyo kaftanka asxaabtaada ood ku kala tagtaan. waa meesha ugu sokaysa. haddaad aad reer leedahayna waxaa laga yaabaa inaad xaaskaaga kusii dayso ku kala tagtaan wax yar. oo dulqaad la'aanta dulqaad la'aantu ummad ilaahay bay kugu diraysaa. wax tusaale kale markaad u fiirsata hadda dadkeena Soomaaliyeed boqolkiiba horta saan u dhanahayba siyaasadda waddankeeni maadaama uu burbursan yahay waddankeeni baan wada eegaynaa oo media baa lala socdaa oo waxaa la kala taageerahayaa siyaasiyiin kala duwan baa la kala taageerahayaa. qofka bilaa dulqaadka ah ma awoodo qofka uu taageerahayo qofka ka soo horjeeda inuu hadalkiisa dhageysto ama qoraal uu soo qoray inuu akhriyo ama ma awoodo meel uu taagan yahay inuu istaago. qofka marka sidaa tahay marka qofkii kaa soo horjeeday lama murmi kartid lama garami kartid hadalkiisa maxaa sax maxaa khaldan ma dhageysan kartid golduleeladiisa iyo meelaha uu ku jecel xitaa ma ogaan kartid sababtoo ma dhageysan kartidba warkiisiiba ma dhageysan kartid. marka dulqaad la'aantu waxay leedahay caqabado aad iyo aad u fara badan. marka ragna iyo waxa dulqaad la'aantu waxa ay ku seejisaa wixii aad xaq u lahayd bay ku garamaraysaa horta. wixii aad qabsan lahayd iyo wixii aad maaragtay dad u qaban lahaydba haddii aad bilaa dulqaad tahay oo dulqaadkaagu yar yahay way ku dhaafsaa. allah u naxariisto. ma garad. marka waxaan rabaa inaan soo jeediyo tala ah qofku waxna waa barasho waxna waa u dhalasho. abuurista ilaahay waa wax meel yaallo oo way adag tahay si loo bedelo. laakiin sida hadda waxaa la bartaa waxyaalo badan baa la bartaa. hadalka sida loo hadlo waa la bartaa sida loo khudbadeeyo waa la bartaa sida loo shaqeeyo waa la bartaa aqoonta lagu shaqeeyo xitaa waa la bartaa waa la akhristaa waa barashma waa la akhristaa. waxyaalo badan wax badan haddii aad ku dadaasho waad baran kartaa. sidaa daraaddeed dhalinyarada weliba da'yarta raba inaan la hadlo dadkii waaweynaadii waaba tageen waxay kharibi kareen kharibeen laakiin dadka yaryarka waxaan kula talin lahaa in ay bartaan habka dulqaadku wax uu yahay inay bartaan inay yeeshaan dulqaad ay abuurtaan iyadoo oo dulqaadkoodu eber yahay uu hoos jiro inay isku dayaan inay u adkaysan karaan hadalka qofka kale inay u adkaysan karaan waxa la leeyahay iyo in ay u adkaysan karaan bulshada dhexdeeda waxa ka jira.